السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. sidaan ii sheegay saakay waxaan bartayda facebooka ku soo qoray in laba wiil oo hawiye ah waliba mursado ah oo dagaal ba'ani ku dhex marayo youtube-ka. labadaas nin waxay ahaayeen saaxiibo naftu u dhaxaydo, waxay ahaayeen laba nin oo walaalo ah, waxay ahaayeen laba nin oo isku qabiil ah waliba isku jufo hoose ah. labaduba waa mursade waxayna ka yihiin sabti haddaanan qaldaneen. marba haddii laba nin oo hawiye ah ay isdagaalayso waliba youtube-ka isku xagxaganayso isku bahdilayso, waxaa waajib igu ah in aan aniga ka hadlo, maadaama anigu aan ahay afayeenka dhalinyarada hawiye ayuub axmed xuseen ayuub kaarlo waa afayeenka dhalinyarada hawiye. marba laba ninoo aniga igu qabiilo ilmo adeeradaya hadday isxagxaganayso ama isdagaalayso, waa ku qasbanahay inaan aniga hadlo, waa ku qasbanahay aniga inaan u garqaado, waa ku qasbanahay inaan aniga kala celiyo, waa ku qasbanahay inaan aniga midka qaldan qaladkiisa dusha ka saaro, midka saxanna aan iraado waa saxan tahay. nimanka isdagaalaya ee youtube-ka loo baneeyey ee iskarbaashaya ee isbahdilaya ee magacyada isku baxshay, magacyada isku baxsheen, midna waxaa loo baxshay farxiyo diyaano, midna waxaa loo baxshay batuule key. dabcan waad wada garanaysaan labada nin waa ck oo ah nin mursado ah iyo ismaaciil xaaji cabdalla oo ah nin mursado ah. aniga waxaan arkay muuqaallo ay isweydaarsanayaan ay isku bahdilayaan. labadaas nin waxay ahaayeen laba nin oo saaxiibo ah, waxay ahaayeen laba nin oo ceesho milaxa, waxay ahaayeen laba nin oo youtube-ka isku shida. ck markii uu soomaaliya tegey ninkii shafka u garaacday ee magaalada ku soo dhaweeyey ee magaalada u shiday ee xitaa suurtogeliyey showgiisa inuu qabsoomo wuxuu ahay ismaaciil xaaji cabdalla. ck ninka meel walba la tegey wuxuu ahay ismaaciil xaaji cabdalla. haddaanan qaldaneen xitaa waxaan filayaa inuu baydhabo markii uu aaday la aaday oo u raacay. anigu waxaan ahay nin mar walba runta aan ka gamban. labaduba waa ii siman yihiin, labaduba waa mursade. mid ay aniga hooyaday dhasha ma jiro, mid aniga aan walaashiis qabo ma jirto oo saydigay ah. marka waa ku qasbanahay inaan warka bayaaniyo oo aan kala dhigdhigo. allahu mustacaan. hadda ka hor baa nin odaya aad uga xanuunsada wadnaha. odaygii waxaa la dhigay isbitaal. dhakhtarkii ayaa inta fiiriyey odaygu wuxuu yidhi wadnahaagu ma shaqaynaye waa in lagaa bedelaa. odaygii wuxuu yidhi ditore waa inaad iga bedeshaa wadnaha. wadnihii ayaa laga bedelay odaygii. markii wadnihii laga bedelay odaygii waa uu caafimaaday, waa uu fiicnaaday. odaygii isbitaalkii ayaa laga saaray. odaygii muddo 2 bilooda ka bacdi ayuu isbitaalkii ku soo laabtay. shakin buu u yimid sida caadada qofka markii operation weyn lagu sameeyo 3 bilood 2 bilood hal mar ayuu isbitaalka ku soo laabtaa si shakin loogu sameeyo. dhakhtarkii baa wuxuu odaygii ku yidhi adeer sidee baad dareemaysaa maadaama aan wadnaha kaa bedelay? odaygii ayaa wuxuu ku jawaabay doctor aad baan u wanaagsanahay, laakiin sida aad wadnaha iiga bedeshay waxaan isku arkay cunto cunis badan
iyo kacsi badan. dhakhtarkii ayaa aad u qoslay, waa uu farxay. odaygii ayaa wuxuu yidhi doctore maxaad ku qoslaysaa? dhakhtarkii ayaa ku jawaabay adeer wax kale kuma qoslayo ee caafimaadka ilaahay ku siiyey ayaan aad ugu farxay. odaygii ayaa wuxuu yidhi oo sidee? dhakhtarkii ayaa wuxuu yidhi adeer cunto cunista badan iyo kacsiga badan ee aad arkayso waa caadi, maxaa yeelay aniga markii aan wadnaha kaa bedelayay ayaan waxaan kuu geliyey qalbi sharmuuto. odaygii waa u qoslay. sheekadaas waxaan ku keenay marka aan aniga fiiriyey dhaqamada CK. markii CK ninka la yiraahdo aan arkay, waxaan isweydiiyey CK sidaan caadi kuma ahane walaalayaalow tolow ninkaasu ma qalbi sharmuutaa loo geliyay sida odaygii oo kale mase waaba ku dhashaba? markii maxaa yeelay waa layga masiirsan yahay, waa lay necab yahay, in laygu soo caanbaxaa la rabaa, attention layga raadinaa, dadku ima arki karaan, waxaa haystaa la ii quur la'yahay. nin raga oo boqolooba hadalladaas kuma hadlo. CK markii uu leeyahay waa la iga masiirsan yahay, maxaa looga masiiraa CK oo haysto? markii uu leeyahay waa la necab yahay, macnaha CK maxaa laga nacayaa? CK ma farmaaja? CK ma Saddam Hussein ba? CK ma Gaddafi ba? CK ma Barack Obama? maahan. CK waa wiil youtuber ah oo youtube-kaas irsaqad ka raadiya. CK ma aha nin politician oo siyaasad ka hadla sidaydoo kale, ma ahan nin hankiisu oo sareeyo. CK waa wiil yar oo youtube-kaas irsaqad ka raadsada, youtube-kaas isticmaala, weliba waxaa la yiraahdaa reaction-ku ugu fiican yahay. ani ma arkin wuxuu ku fiican yahay. CK 2 daqiiqo markuu hadlo, 2 daqiiqo fiiri, 2 daqiiqo markuu hadlo, nin jareer ah oo sawaaxili ah, weliba sawaaxili muslim ah oo qamiis wato iyo mid kale oo madow ayuu fiidiyadiisa ku edit gareeyaa. 2 hadal markuu sheegay jareerkaas soo booda, jareer baa soo boodaysa. markuu cabaas sheegaba jareertaas ayaa soo boodaysa. xitaa ma ahan nin talent u leh in uu hadlo sida youtuberada kale, youtuberada qaar oo kale, sida dadka qaar baraha bulshada caanka ka ah oo kale ma isticmaalaan fiidiyoyaal kale oo Afrikaan ah si ay dadka ugu soo jiitaan. waa arkay ayadoo loo hambalyeeyo 600,000 oo subscribe inuu gaaray. kama xumi, waa ku faraxsana maadaama uu yahay nin hawiye ah. hambalyaan ku leeyahay, laakiin mid ogow 600,000 ee adiga subscribe-ka kuu saartay ee kula socota hamoodin inay adiga kula socdaan. haddii aad caadi u hadli lahayd oo aad caadi u sheekay lahayd, markaas anigu waa isdhihi lahay wallahi in adeerkaa waa nin talentiya, ninkaas muursade oo aad hawiyaha isla tiin waa qatar. maxaa yeelay dadku waxay la socdaan oo ay fiirsadaan jareertaas, fiidiyadaas jareertaas oo maaragtay dadka aad geesaha ka dhigayso markii aad reaction bixinaysa. xataa maaragtay war 2 daqiiqo toos xataa ma hadli karo, 2 daqiiqo toos ama 1 daqiiqo toos ma hadli karo. hadda aniga live-kan 8 daqiiqo aan hadlooyaa, waqti xaadirkan 8 daqiiqo marooyaa. wax fiidiyow ah ama wax jareer ah ama sawaaxili ama tansaaniyaan ama Nigerian ilma adeerayaal ku aragteen waa maya. hadalka ma ahan wax la iska keenkeeno ee waa wax loo dhasho, waa hibe Ilaahay ku siiyo. CK markii aan leeyahay qalbi sharmuutaa ku jirto, markii aan leeyahay CK dabeecadahaasaan ku arkay, waana dabeecadaha dumarka. aan u laabto Ismaaciil Xaaji Cabdalla. CK waa uu soo dhaweeyey, xamar uu ku soo dhaweeyey, dhabarkuu saartay. magaalada Muqdisho markii uu joogay waa uu xushmeey jiray, wuxuu ka dhigtay nin walaalkiisa, wuxuu ka dhigtay nin in adeerkiisa. laakiin Ismaaciil Xaaji Cabdallow waxaan kuu sheegayaa marmarka qaar way dhacdaa qof aad gacal mooday ama walaal mooday inuu abris ama bahal kugu noqdo.
waxaasoo kalena horaa loo arkay wax maanta adiga kugu horreeyey maaha waxa ayaan darro ah oo liidasho ah oo daciifnimo ah weliba CK wuxuu sameeyey 6,000 oo dollar ayaa waxay ugu jirtay mataanaha Ismaaciil Xaaji Cabdalla iyo Super Osil waa laba nin oo dhalinyaro ah oo magaalada Muqdisho joogto waa laba nin oo YouTube-kaas micnaha shitay wadankoodii shitay oo aan soo dhoofin oo aan soo tahriibin ee Muqdisho dhexdeeda caan ka noqday iyo Soomaalida gudaheedaba irsaqadoodii ayuu halkaas u istaagay laakiin inuu irsaqadooda halkaas u istaago ayaga u suurto geliyo walaal bay moodeen sidaas bay u soo dhaweysteen maahane hadday uga tashanayeen cadow tan kuma dhacdeen YouTube-ki markii la xiray lacag baa ku jirtay 6,000 oo dollar dabcan ninkii YouTuber oo YouTube laga xiraa gara kara 6,000 oo dollar baa ugu jirtay 6,000 oo dollarne rest in peace samir iimaan Allah ka siiyo Ismaaciil waa laga qaldan yahay ninkaanu waa gun waana midgaan dhaqamada CK markii aan fiiriyay aniga horta CK waa libaax wallaahi oo billaahi oo tallaahi CK waa libaax laakiin waa libaax qaniisa waa libaax labeeb ah waa libaax liita Ismaaciil Xaaji Cabdalla waa libaax laakiin waa libaax nina adiga hadda aniga idaawanaya ee live-kayga daawanaya ama daawad doono markaan ka baxo live-ka waxaad isweydiinaysaa Ayuub Axmed Xuseen Ayuub Carlo muxuu Ismaaciil Xaaji Cabdalla dhinaciisa u xigsanaya oo CK-na uga eexanaya taas mid baan ka leeyahay walaal anigu libaax nina baan ahay Ismaaciil Xaaji Cabdallana waa libaax nina libaaxa ninka ah waxa waajib ka saaran yahay libaaxa ninka ah inuu u heliyo libaaxyada nimanka ah bal ilaahay idinku dhaariye anigoo ah afayeenkii dhalinyaradii hawiye miyaan u heli karaa libaax qaniisa no CK waxa u heli kara libaaxyada kale ee qaniisyaasha ah ee sidiisoo kale ah ee liita halkaas markii ay joogto aniga garta barteedaan dhigay waxaana ku soo gabagabeeyay in CK yahay libaax qaniisa Ismaaciil Xaaji Cabdallana yahay libaax nina waajibkii isaarnaay maadaama aan ahay nin dudubla ah oo mursadana aan wada degno waxa waajib igu ah haddii aan waayo mursado kala celinaya labadan wiil ee mursadaha ah ee Facebook-ga iyo YouTube-ka iyo meel walba isku xagxaganaysa haddii aan waayo mursado kala celinaya ama nin mursada oo kala qabanaya waa igu waajib inaan anigoo Ayuub Carlo ah soo fadhiisto nin dudubla maadaama nimankan ceelbuur aan wada degno waxa waajib ugu ah inaan libaaxyada kala goro kan qaniiskana aan dhinac dhigo kan ninkaana aan dhinac dhigo anyway CK isbaar hooyadana weydii aabahana weydii adeeradana weydii in qalin lagu sameeyay waa ka shakisanahay oo waxaan isleeyahay kanu caadi ma ahane dhaqan mursada iyo dhaqan hawiyana ma lahane ugu yaraan qalbi sharmuuta loo geliyay inta la qala sida odaygi suubada ku dhasho CK waa Ayuub Carlo soo idin leh meel walba dunida ka joogtaan guuleysta farxadna ku noolaada fadlan haddii uu live-kan ku soo gaaro like dhac ku sii siina share garay si qof walba uu u gaaro aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada aad i daawanayso landheere